maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta dil toogasho ku fulisay ragii dilay wariye Maxamed Maxamuud Timcade oo 22 bishii tobnaad 2013 lagu dilay magaalada Muqdisho iyadoo cadaaladda la hor keenay lagu fuliyo dil toogasho Allah raxmade wariye Maxamed Maxamuud Timcade oo kamid ahaa wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho gaar ahaan TV Universal ayaa 22 bishii tobnaad 2014 lagu dilay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxaa madasha qasqaasta ka dhacday ka hadlay xilalaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya gaashaale dhexe Cabdullaahi Maxamed Xuseen wuxuuna saxaafadda kaga warbixiyay sida howsha u gudatay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya maalintii ay taariikhdu ahayd 23 bishii sideedaad 2014 waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacan ku dhiiglayaasha kala ah gacan ku dhiigle shabaab Ali Bashiir Cusmaan 20 jir ah ina muumino Cusmaan ku dhashay Shabeellaha Dhexe degan Wadajir 2 gacan ku dhiigle shabaab Cabdullaahi Shariif Cusmaan 25 jir ah ina Sahra Ibrahim ku dhashay Shabeellaha Dhexe degan Darkeynley kuwaasoo xafiiska xir ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in ay si bareer ah oo ula kac ah oo qorshaysan u dileen marxuumiinta kala ah marxuum wariye Maxamed Maxamuud Timcade taariikhdu markii ay ahayd 22 bishii tobnaad 2013 2 marxuum dhamme Anas Awil Xasan Maxamuud waxayna ku xukuntay dil toogasho ah dhanka kale waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya u hambaliyay Maxamuud Timcade oo ah aabihii dhalay wariye Maxamed Maxamuud Timcade isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay in cadaaladda la hor keeno ragii dilay wiilkiisa oo ah wariye Maxamed Maxamuud Timcade Bismillahir Rahmaanir Rahiim maanta waxaan hambaliyo u dirayaa dhammaan ciidamada qalabka sida oo isku duuban iyo dadweynihii amniga kala shaqeeyay wiilkayga Timcade Maxamed Maxamuud Timcade loo u shaqeyn jiray University TV University oo loo soo qabtay wixii xaq ka galay cadaaladii xaqii lagu fuliyay cadaaladii maanta timiday ayaan alla ugu mahad celinayaa sidoo kale agaasimaha TV Universal xarunta Muqdisho Cabdullaahi Xirsi Kulmiye ayaa asan dhanka kale ciidamada maxkamadda qalabka sida ugu hambaliyay sida howsha ay u guteen isagoona alla uga bariyay wariye Maxamuud Maxamed Timcade in jannadii Firdawso ka waraabiyo waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo hay'adaha amniga qaybahooda kala duwan iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida maalintii aan abiil ka dirnay waxay 22 sanadkii soo dhaafay bishii Oktoobar oo aanu dhahnay ma ka yeeli doono waa in gacanta lagu soo dhigaa dhagar qabayaashii maaha markii ugu horeysay wariyaal ka howlgala magaalada Muqdisho si xandara loogu dilay magaalada Muqdisho Ismaan Daayir Cabdullaahi Ismaan Qaali TV-ga caalamiga ee Somsite magaalada Muqdisho